munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu soo dhaweynayay wafdigii dhawaan ka yimaaday xukuumadda Somaliland ee soo gaaray dalkani Britain isla markaana ay hogaaminayeen labada wasiir ee kala ah wasiirka arrimaha dibadda mudane Saad Cali Shire iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta Somaliland mudane Cawaale Ibrahim Shirwac Loodon ayaa lagu qabtay magaalada London. munaasabadan waxa soo qaban qaabiyay jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan magaalada London nawaaxigeeda waxaana ka soo qayb galay safiiro siyaasiyiin waxgarad iyo aqoon-yahan aad u fara badan. qaar ka mid ah dadkii munaasabadan ka hadlay hadaladoodii waxaa ka mid ahaa marwan iyo mudaynaan dhammaantiin aad iyo aad mahadsantihiin xafladan quruxda badan ee ka soo qayb gasheen ee lagu soo dhaweynayo wasiirka qorsheynta qaranka Cawaale Ibrahim Shirwac iyo wasiirka arrimaha dibadda Saad Cali Shire. waxa kaloo martooyna la jooga caawa safiirka Somaliland ayaan Maxamuud Cashuur. Cawaale Shirwac oo ah qof aan wada garanayno reer London nala ahaa reer West London khaas ahaan in la siyaha marka runtii waxa sharaf weyn ah ana mission ahaan wasiirku uu nala shaqeeyay 18 May baanu uu nagala shaqeynayay guddiga halka qayb ka fadhido ku jiray marka sharaf weyn waxa ay qof Somalilandnimada saa ugu dheer tahay in uu hadaynu reer UK nahay inoo matalo qarankii. Ana ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada waxaan soo dhaweynaynaa horta mahad celinaa dadweynaha sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladan maanta aan ku soo dhaweynayno wasiirkeena Cawaale Ibrahim Shirwac oo ah nin reer London oo nin dhalinyaro ah waxaanan u mahad celinaynaa oo halka salaameynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. waxa salaamaya madaxdii qaranka madaxweynaheena Mr Biixi iyo ku xigeenkiisa Saylici waan salaamaya waxaan leeyahay soo dhawaada sharaf iyo karaamo leh halkan ugu soo dhaweynaynaa maanta labada wasiir ee inooga yimiday dalkeenii hooyo. marka hore waxaan u salaamayaa guddiga soo qaban qaabiyay kulankan caawa ah waxaan kaloo aad u salaamayaa iyagana labada wasiir Dr Shire iyo Shirwac. waxaan soo dhaweynaynaa labada wasiir martada inoo ah iyo safiirka waxaan leenahay welcome to London. waqaba badan buu ku Allah bashku kamid yahay waxaan jeclahay wax ka bedeli doono marka mataqaanay adduunka qaylada loo dirayana wax ka qaban doono waan soo dhaweynaa Cawaale waa kulli inaan wax badan ku ogahay reer marka la yiraahdo walaalka haduu yahay inuu ku soo dhawaan aqoontaada iyo cilmigaaga ninkii kugula soconaya kugula socdo laakiin nin shamiis reereed ku soo gashaday iska dheere marka madaxweynaheena cusub Muuse Biixi Axmed magaciisu haraago iyo madaxweyne ku xigeenka aad iyo aad halkan ugu salaamaya salaam ugu diraya madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici. markii dhalinyaradii cusbayd runtii mid walba halka uu soo taagay uu ka waramay aqoontiisa iyo waarnimadiisa anigu aad iyo aad baan runtii ula dhacay idadiilo badanna runtii waan ka qabaa dhalinyarada waxa kamid ahaa Shirwac baa kamid ahaa waxa isleeyahay wax badan ayuu ka qaban doonaa ka bedeli doonaa ku korin doonaa wasaaradda loo igmaday wasaarad aad iyo aad u muhiim ah. inta marka laga gudbo waxaan rabaa inaan u mahadnaqo bulshada Somaliland dhamaanteed ee ku nool magaalada London wadanka UK. waxa kale oo aan rabaa inaan u mahadnaqo mar haddii aan halkan joogo oo dawlad matalano oo inaan u mahadnaqo dawladii aan ka mid ka ahay madaxweynahayga iyo dhammaan xubnaha golaha wasiirada. munaasabadan ayaa ku soo idlaatay jawi aad u wanaagsan. Cabdi Fataax Ali Shirwac, telefishinka caalamiga Home Cable magaalada London.